24 saac soo socda waxaan tijaabi doonaa inaan akhriyo 14 iyo boqolka Quraanka Kariimka ah ee qowlka Eebbe. Waxaan tijaabiyay inaan muddo 24 saac ah nafsadeyda ka adkaa karo waxyaalaha ay jeceshay aan u diidi karo. Anigoo faraxsan oo guuleystay ayuu waagu ii bariyay. Intaas kadib waan seexday, hurdo igu filan markii aan helay. Waxaan arkay lacagtii Facebook oo ii soo dhacday. Quraac ayaan doontay, naftu waxa ay jeclaydna waan siiyay. Waxa iga mamnuuc ah ama shuruudahayga kamid ah inaan wax internet ah isticmaalo ama aan data ku shubto si uusan iiga khasaarin hal sekin oo waqtigayga kamid internetka. Waxaana sidoo kale i saaciday doona inaanan 24 saac soo socdo hurdi doonin maadaama aan shift leeyahay aan isbitaal ku qoranahay. Iigu soo duceeyo inuu Ilaahay iigu caafiyo walaalkay Quraanka Kariimka ah fadligiisa iyo barakadiisa. Markii aan dhameeyo ayuu muuqaalkan ku soo gaari doona hadii uu Ilaahay nabad iyo caafimaad igu gaarsiiyo. Waxaan idin ka codsanaa muuqaalkan inuu noqdo kii ugu like-ta badnaa uguna share-ta badnaa si uu u gaaro malaayiin qof. Hadda waa 7 subaxnimo, bari 7 subaxnimo waa inaan ku dhameeyaa 14 iyo boqolka. waxaan nafsadeyda ka qaadi doonaa tijaabadii ugu adkayd. Waan ogahay inay jiraan dad badan oo Ilaahay Quraanka u fududeeyay oo ku akhri kara 10 saacadood ilaa 7 saacadood, laakiin aniga waxa igu kalifay inaan qabsado 24 saacadood oo ah waqti dheer oo aad u ballaaran. kow, aniga Quraanka Kariimka ah ma xifdisani oo kitaab ayaan ka akhrinayaa. labo, ma ihi freedom oo anytime ayaan mashquuli karaa, hawlo ayaan qabanayaa. sidoo kalena dad ayaa ila joogaan, bulsho ayaan ku dhex jiraa, qof dad la joogana mashquul kama baxayo. waxaan kitaabka soo kala baxshay oo aan bilaabay akhrinta Quraanka xilli aan ku qiyaasayo 1 saac iyo barka AM. markii aan 30 daqiiqo akhriyaba qof ayaa wax i weydiinaya, hawl ayaan qabanaya, waan mashquulayaa. caqabadaha ugu waaweyn ee aad la kulmayso markii aad samaynayso tijaabo noocan oo kale ah ama cibaado ah waa markii dhowr saacadood aad wadaba inaad caajisto ama hurdooto, maxaa yeelay waxaa kula xiriira shaydaan, ninkaas odaga ah oo dhiigaaga ku dhex jira, iyo naftii oo ayana raaxada iyo nasiinada aad u jecel. waa inaad mar walba hadafkaaga niyadda ku haysaa, aadna isku dhiirigelisaa adigu inaad samay karto. ay soranin there's no way wax la yiraahdaa ma jiro, there's a way. habsan tijaabi. anigu aan meel dheer bagaarin oo maraya suuratul Acraaf ayaa la igu aadimay duhurkii, laakiin waan dadaalay. markii aan suuratul Huud marayay ayaan go'aansaday inaan nafta hadalkeeda yeelo oo aan qada doonto maadaama aniguba aan energy u baahanahay, laakiin qadadii ma aanan badsan oo mar walba wax calooshayda buuxinaya waan iska ilaalinayay. waxaa la gaaray galabtii waa 11 saac, laakiin hawshayda ayaan sii wataa. maqribkii waxaan ku tukaday suuratul Israa maadaama aan intii u dhaxaysay 8 saac ilaa 11 saac hawlo kale iskaga mashquulsanaa oo aan kitaabka dhan meel iska saaray. على حال anigoo maraya suuratul Anbiya ayaa la gaaray 2 saac oo hameennimo. kitaabkiina waan iska dhigay, waa aan hurdooday. intii 6 saac oo hameennimo laga gaarayayna waa aan iska jiifay. mar 7 saac camal ah ayaan dib u bilaabay. waxba yaan war kugu daalin, saqdi dhexe oo dhan